عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتم wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan waa galabnimo talada bisha Abriil 2020 sanada 2025 qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah Somaliland oo go'aan yaab leh ka soo saartay markaasi dadka baraha bulshada ku baahiyay colaadaha iyo waliba markaasi fariimaha qabaylada markaasi isku diraya sida markaa hadalka u dhigtay Somaliland waxa sidoo kale Somaliland ay guud ahaan talaabo weyn u qaaday dhinaca la xiriira in kulamo caalami ah lagu qabto markaasi magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxaana Somaliland la tilmaamay inay qaadi doonto talaabooyin waaweyn oo ay doonayso in guud ahaan markaasi ay isbedel weyn looga sameeyo dhinaca la xiriira ammaanka iyo horumarintiisa iyo in colaadaha sokeeyo markaasi laga gaashaanto waxaan eegi doonaa xogii ugu dambeeyay soo gaaray dhanka Somaliland ee la xiriira arrimahaas kala duwan iyo sidoo kale gobolada bariga Somaliland iyo goorta madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro uu ku wajahan yahay eegi doonaa oo aad markaasi looga dhursugayo iyo magaalooyinka uu tagi doono sidoo kale ayaan soo qaadan doonaa dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo ka soo saartay markaasi go'aan guud ahaan aad u adag ciidamada furimaha dagaalka ku sugan iyo arrin la tilmaamay inay ka dambayso jabka ciidanka soo gaara iyo sidoo kale guud ahaan ay furimaha dagaalka looga adkaado arrin keenta markaasi ay dowladda Soomaaliya ay markaasi heshay ay leeyahay kadibna ay talaabo ka qaaday oo ay guud ahaan tilmaantay in ay go'aan adag markaasi ka soo saareyso dhinaca kale maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland gaar ahaan Axmed Madoobe ayaa ku xidhay markaasi shuruud aad u adag wadahadalada iyo sidoo kale guusha nabadeed oo fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tilmaamay inay ka soo wada qayb galaan dhammaan markaasi madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya wali la leeyahay Axmed Madoobe markaasi looma dirin casuumad haddana Axmed Madoobe waxa uu soo saarayba shuruud kale oo isaga markaasi u gaara Axmed Macalin Fiqi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu guud ahaan tilmaamay in hal sabab darteed aanay kooxda shabaabka markaasi u qabsan doonin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xilli xaalad halis markaasi lagu jiro oo aad looga hadlayo markaasi gudaha iyo dibadda kooxdan iyo waxa ay sameyn kareyso qodobo kala faahfaahsan ee barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay Somaliland ayaa go'aan cajiib markaasi ka qaadatay arrinka la xiriira waxyaabaha baraha bulshada lagu baahiyo ee colaadaha iyo markaa fariimaha gudbinaya markaasi kicinaya bulshada waa sida Somaliland hadalka u dhigtay hadaba arrinkan ayaa la tilmaamay in muddo markaasi Somaliland ay doonaysay inay xeer ka soo saarto la xiriira si loo qabto markaasi qof kasta oo qaadaya talaabo muujinaysa markaasi in qabayladu ay isku markaasi soo faysmi karayaan ama fariimo markaasi kicin ah sameynaya waxa Somaliland ay waday bariyahanba hawl ay doonaysay inay ku soo gabagabayso amni darrada ka jirta gobolada bariga Somaliland waxa la qaramiyay markaasi ciidamadii ugu badnaa oo qabaylada markaasi gobolada bariga Somaliland dega ah waxa sidoo kale barbar socda ayaa leeyahay dib u heshiisiin la doonayay in qabaylada wada dega markaasi gobolada bariga Somaliland in guud ahaanba la isku laabxaado oo colaado kala duwan ayaa dhici jiray ka hor xitaa inta aan dagaalku ka dhicin magaalada Laascaanood dagaalo badan ayaa dhacay oo deegaanka Ceelaf weyn ay kamid yihiin iyo Cergaabo markaasi duleedkeeda oo marar kala duwan la isku dilay iyo sidoo kale meelo kale oo markaasi gobolada bariga ah oo marar kala duwan markaasi qabaylo markaa wada dega oo walaalaha ay halkaas isku dileen hadaba taasi lafteeda markaasi madaxweyne ku-xigeenka Somaliland waxa uu tilmaamay in haatan laga gaaray guul weyn oo kaliya ay ahayn in ciidamadii ku sameysmay waqtigii dagaalkii Laascaanood kadib in la qarameynin ee la qarameynayo sidoo kale ciidamada marka iyaguna la sheegay in guud ahaanba ay ahaayeen qabaylo wata markaasi hub ama hubaysan iyaga laftooda markaasi hubku waa laga qaaday oo waxa jiray markaasi arrin la xiriira Somaliland in markii la qaaday guud ahaanba ciidamada la qarameynay ee hore ee markaasi la sameeyay ciidanka militariga Somaliland iyo markii beelaha hubka laga dhigay ee bariga wadanka markaas dib loogu soo laabtay ee colaadihii sokeeye aadka u baana ay dhaceen waqtigii markaasi Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal waxa jiray markaasi beel walba way hubaysnayd oo hubkeeda ay haysatay dagaal sokeeye ayaa dhacay markaasi xilliyadii markaasi 92gii ilaa markaa laga soo gaaray ilaa iyo markaasi 97 ama 97 laga soo gaaray markaa waxa la tilmaamay in dagaalo kala duwan ay dhacayeen hadaba gobolada bariga Somaliland waxa waqtigaasi loo ogolaaday in beelaha qaar markaasi ay hubkooda haystaan maadaama weerar kale oo markaasi meelo kale laga soo qaaday ay jireen colaadaha beeruhuna markaa ay iska badnaayeenba hadaba arrinkaas ayaa la tilmaamay markaasi in xukuumadihii kala dambeeyay Somaliland ay ku dhiiran waayeen taasoo markii dambe keentay in colaado joogto ah ay ka dhacaan gobolada bariga Somaliland isku midna maaha markaasi gobolada bariga iyo kuwa galbeedka markaasi Somaliland waa ay kala duwan yihiin oo dhinaca ammaanka markaasi gobolada galbeedka
ayaa aad horumar ahaan iyo nidaam ahaan iyo sidoo kale maamul ahaanba lagu tilmaamaa inay xoogan yihiin. Arrinkeena waa dhinaca ammaanka iyo deganaanshaha faraha badan ee ka jira markaasi gobolada galbeedka Somaliland, walow ayna badnayn oo marka galbeed la joogay bariga ayaa badan Somaliland. gobolada galbeed ku yaala marka way iska kooban yihiinba waa Gabiley iyo Boorama iyo Seylac iyo markaasi magaalooyinkaas ugu waaweyn, halka gobolada barigan ay xigaan markaasi Burco, Ceergaabo, Laascaanood, sidoo kale Berbera iyo magaalooyin waaweyn Sheekh iyo magaalooyinka Caynaba, magaalooyin waaweyn markaasi oo magacyo waaweyn ayaa ku yaala bariga Somaliland. Marka waxa leeyahay isku xajmi ma aha, horumarkuna aad ay markaasi dhinacaas uga socdaa oo lafteeda markaasi magaalooyinka weynaa Burco iyo Berbera iyo waxay ka mid yihiin bariga Somaliland. dhinaca kale waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo saartay digniin xoogan oo ku aadan ciidamada markaasi ku sugan furimaha hore ee dagaalka, taasoo la tilmaamay in arrin la helay qayb ka noqon karaya ama ka noqdayba jabitaanka ciidamada soo gaadhay iyo sidoo kale in ciidamada markaasi looga guuleysto qaybo ka mid ah furimaha dagaalka ee ay ku jiraan. taliska militariga Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay isticmaalka baraha bulshada ee sida khaldan ay u adeegsanayaan qaar ka mid ah ciidanka ku sugan furimaha hore. taliyaha guutada 7-aad ee Abu Dujana Gaashaanle Salim Cumar Axmed ayaa shaaca ka qaaday in aan loo dul qaadan doonin faafinta xogta la xiriirta dhaqaaqyada ciidanka oo marar kala duwan markaasi baraha bulshada la soo dhigo. oo ciidanka waxaad arkaysaa iyagoo meel markaasi hawda maraya oo meel markaa adag maraya kadibna la soo duubayo wadadii ay marayeen meesha ay isticmaalayeen wixii hore markaasi xogta ay banaanka taal. hatta halka kooxda ka soo horjeeda aan la helin xitaa aan la ogeyn xitaa taliyaashooda aan la ogeyn, saraakiishooda aan laga warhaynin, cidda hogaaminaysa dagaalka aan laga warhaynin, haddii uu sarkaal dhinto iyo haddii uu markaasi askari caadi dhinta aan laga warhaynin. saas oo kale ayaa fiicneed ayaa la leeyahay. walow dagaalka mararka qaar uu u baahan yahay guubaabo iyo in la guubaabiyo ciidanka, haddana guubaabada iyo isku mid maaha iyo in la duubo ciidanka meesha ay markaasi ku sugan yihiin ama ay joogaan. mar waxaa jiray muuqaal baraha bulshada soo galay oo aad markaasi loo wareejinayo ahaa in la soo duubay taliyaha ciidanka sirdoonka Soomaaliya iyo gaari uu isticmaalay markaasi furimaha hore waqti uu booqanay soo gaariga ka soo degaya isagoo markaasi guud ahaan nooca gaariga uu saaran yahay wixii hore markaasi la soo wada duubay oo furimaha horena uu ku sugan yahay oo meesha uu ku sugan yahay tahay markaasi meel furin dagaal ah. waxa uu saacad u sheegay taliyahan haddaba guutada 7-aad in askari kasta oo lagu arko inuu baraha bulshada soo dhigo muuqaalada furimaha hubka ama sawirro dagaal la xisaabtamayo lana horgeynayo maxkamad. taliyaha ayaa arrintan ku tilmaamay mid khatar ku ah ammaanka dalka, isagoo ku eedeeyay kuwa sidaas sameeya inay si dadba markaasi ula shaqeynayaan cadowga dagaalka lagula jiro. sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in baaritaano hore u socday markaasi hadda la dardar gelin doono lana gaari doono markaasi go'aan sharci oo degdega. warku waxay tilmaamayaan in guud ahaan xilligan dowladda Soomaaliya ay wado baaritaano kala duwan oo ku aadan in wax laga ogaado bal waxa keenaya xilligan in ciidamada Soomaaliya meelo badan oo ay kooxahan isku wajaheen ay markaasi jab kala kulmaan. sidoo kale guuldarooyinkiis daba joogga ciidamada soo gaaray muddooyinkii dambe ee Aadan Yabaal iyo magaalooyinka waaweyn laga qabsaday waxa keenay lafteeda markaasi waa arrin magaalada Muqdisho gudaheeda aad wax la isaga weydiinayo. dowladda lafteeda la tilmaamay in saraakiisha ugu sareysay ay ku noqotay shock iyo u qaadan walow la leeyahay waxa lagu markaasi loo maleynaya inay keentay isbedelka ku imaaday laamaha ammaanka ee Soomaaliya oo waqti aan loo baahnayn markaasi la sameeyay ayaa la leeyahay. oo waqtigaasi ma ahayn la taabto laamaha ammaanka, waxa ugu weynaa wasiirka difaaca, sidoo kale taliyaasha ciidamada ayaa la bedelay oo dhamaantood markaasi la wada bedbedelay. markaa waxa la leeyahay markaasi laamaha ammaanka bedbedelkaasi faraha badan waxay u keenayaan wareer iyo in guud ahaanba qof walba hawshii uu waday ay ka kala daadanayso. taas ayaa markaasi la leeyahay isbedelkan faraha badan ee laamaha ammaanka lagu sameeyo qayb ay ka yihiin guuldarooyinka ku dhacaya ciidamada xoogga dalka. sidoo kale Axmed Madoobe ayaa shuruud ku xidhay inuu ka soo qayb galo kulanka uu ku baaqay Xasan Sheekh Maxamuud ee ka dhacay magaalada Muqdisho. dowladda ayaa waxa ay Axmed Madoobe markaasi ay guud ahaanba ku xidhay ku laabashada doorashadii muranka dhalisay ee ka dhacday Kismaayo shirka golaha wadatashiga qaranka. dowladda Soomaaliya ayaa shuruudan ku xidhay in guud ahaan markaasi Axmed Madoobe uu ka soo qayb galo kulanka ka dhacaya magaalada Muqdisho. ay dowladda Soomaaliya markaas shuruud ku xidhay waxaana ay ku xidhay in doorashadii muranka dhalisay ee ka dhacday Kismaayo dib loogu laabto. shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu wadaa inuu furmo magaalada Muqdisho, kaasi oo lagu casuumay madaxda dowlad goboleedyada marka laga reebo Axmed Madoobe. Axmed Madoobe laftiisa markaasi waxa uu leeyahay
وتاسي suurtagal ma aha laguna laabanaya markaasi dowladda Soomaaliya waa inay aqbashaa doorashadii ka dhacday markaasi magaalada Kismaayo inay ahayd mid sax ah markaas ayuu man ka soo qayb galay isagoo markaas shuruudiisa ay tahay oo isagoo dhankiisa markaasi keensaday halka dowladda Soomaaliya shuruud keentay Axmed Madoobe shuruudaas ayuu keenay wasiirka amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Janaal Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in doorashada lagu doortay Axmed Madoobe aysan waafaqsaneyn dastuurka iyo xeerarka dalka isagoo ku tilmaamay mid sharci darro ah oo aan lagu dhisin habraac sax ah wasiir Fartaag wuxuu si toos ah u cadeeyay in ka qaybgalka Axmed Madoobe ee madasha siyaasadeed ee ku xiran tahay inuu si rasmi ah ugu laabto doorashadaasi taasoo ay dowladda federaalka hore u sheegtay inaysan aqoonsanayn dhinaca kale fiqi haddii aan sii raacino isagana oo bariyahan warkiisu aad u batay waxa uu haatan sheegay in guud ahaan magaalada Muqdisho kooxda argagixisada shabaabku ayna qabsan doonin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay si weyn u dhimayn awoodda kooxda wasiir Fiqi ayaa tilmaamay in dagaalka socda uu horseeday isbedel muuqda oo ku yimid tareenka shacabka Soomaaliyeed isagoo xusay in dadku hadda ay kalsooni buuxda ku qabaan in la jebin karo shabaab isla markaana ay sameeyaan tallaabooyin aysan hore ugu dhiiran jirin sida uu sheegay wasiirka waxa jira markaa faham khaldan oo ku saabsan awoodda kooxda wuxuuna wax la yaabo ku tilmaamay in xilligan la joogo ay jiraan dad weli rumaysan in shabaab ay qabsan karaan caasimadda wuxuu arintaas ku sifeeyay mid ka fog xaqiiqada dhabta ah ee dhulka markaasi ka jirta wasiir Fiqi wuxuu tusaale u soo qaatay sida dadka Soomaaliyeed ay uga falceliyeen guulaha laga gaaray shabaabka isagoo sheegay in dhawaan magaalada Baydhabo lagu arkay dad tiro badan oo isugu soo baxay si ay u muujiyaan taageeradooda kadib markii halkaasi la keenay meydadka xubno ka tirsan kooxda shabaabka arrimahaas ayuu sheegay markaasi Fiqi inay muujinayaan in guud ahaanba aan kooxdan qabsan doonin magaalada Muqdisho iyadoo dowladda Soomaaliya haatan shaki badan laga markaasi laga keenay maadaama awoodeeda markaa aad isku dhintay maalmihii ugu dambeeyay magaalooyin muhiim ah markaasi laga wareegay waxa la leeyahay xaaladda markaasi dowladda Soomaaliya markaa shaki ayaa xilligan la gelinaya oo kaliya maaha Soomaalida ee caalamkii wadamadii dariska kuwa gobolka oo dhan ayaa markaa shaki gelinaya xilligan awoodda dowladda Soomaaliya iyo in magaalada Muqdisho laga qabsado maadaama kooxdan ay joogaan duleedka magaalada Muqdisho akhirta sharafta leh wadana kala socoto tan iyo kulanti dambe nabadgelyo